تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأة الحمالة الحطب في جيدها حبل من مسد المهو. Ku dhowaad 30 sano ayuu la taahayay jab ka soo gaaray jaceyl gabadhii uu jeclaa markii ay ka raacday nin kale. Waxa uu guda galay marxalad kale oo beddeshay xaaladiisa caafimaadka. Waxa uu ahaa dhibana muddo badan ku noolaa gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Qof walba oo arka muuqiisa madadaalo ayuu ka dhigan jiray, ruuxa kalena dhinac ayuu ka mari jiray. Balse shakhsi samafala oo lagu magacaabo Iile Aadan kuna nool magaalada Kismaayo ahna wariye ayaa baahiyay dhacdada ninkan. Sheekadiisa oo ku baahday baraha bulshada ugu dambeyntii waxaa la geeyay xarun lagu hayo dadka dhimirka ka xanuunsanaya. Iminka xaaladiisa caafimaad waa ay soo hagaagaysaa, xasuusihiisa qaar dib ay u soo laabanayaan. Marxaladii uu ku jirana hadda isbeddel weyn ayaa u muuqanaya. Caafimaadkiisa ayuu marba marka ka dambeysa dib u sii helayaa. Quraanka lagu akhrinayo iyo sidoo kale halka lagu hayo waa meel lagu xafidayo ayaa noloshiisa alla ka sokow isbeddel ku keentay. Iile Aadan oo markii hore ahaa shakhsiga tabiyay xaaladda caafimaad ee ninkan uu wajahayay ayaa ugu dambeyntii waxa uu soo bandhigay isagoo quraan akhrinaya markan. Aamusnaantii muddo afkiisa haysay iyo sidoo kale xaaladihii ku gudaamnaa markaan afkiisa kalaamka Allah ayuu ku hayaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب يال وحنا لا وقت ونكسن أديرا ماشي وكجري الدكتور حبيب ومهد علينا واكسو بحيمانتا وسكون قندونا مخرب كدب بل سجلت جو إنا مقالة كسو قادنو أيان أسوي بحي تنو حكمة هاي إن لا دياري أديرا ومسكحيا لا شكستو أديرا. السلام عليكم. عليكم السلام. سيداتها ما شاء الله. أديرا ضد بدنا كو فرح دونا ممكن مقال كان أركان وحكاربا إنا إيه أخرست سورة التبت أيان ربا إنا إيه أخرست تبت نيا. ها تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأة الحمالة الحطب في جيدها حبل من مسد المهو. الله أكبر. تبت ساسوي. ما شاء الله ما شاء الله. الآخرين ساسوي. واي هاي أديرا. حالة هذا كور هذا. ها؟ حالة هذا كور. ما يوروي هل الدعاء muuqaalkan wuxuu farxad geliyay dad badan. Dadka qaar ayaa durbana dareemaya in wanaagii sidoo kale farxadii lagu yaqiinay shakhsigan dib ay u soo laabanayso. Dadaalka loo sameeyay ayaa keenay in intaanay ka soo bidhaamaan, laakiin ehelkiisa ayaa rajeynaya in caafimaadkiisu taama mar kale dib ay u arkaan. Mar waliba ku xirnow Sharmaarka Media.